Maalinba deegaan ayaa laga saarayaa khawaarijta. Shacabka iyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeedna waxay u midoobeen ciribtirka cadawga arxanka daran ee khawaarijta. Muddo ka yar 2 bilood ayaa deegaano badan oo ka tirsan Shabeellada Dhexe looga saaray argagixisada. Boqolaal ayaa loogu dilay inta howlgallada Shabeellada Dhexe ay socdeen. Tiro kale waa looga soo qabtay kuwaas oo isugu jiray isa soo dhiibayaal iyo kuwo kale oo la soo qabtay una adkeysan waayay rasaasta ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo dadka deegaanka oo is abaabulay. Bakadjeex waxay ka mid tahay deegaanadii looga awood badshay khawaarijta lagana xoreeyay si loo dhiirigeliyo shacabka loona soo ogaado baahiyaha ay qabaan. Waxaa kormeer ku tagay gudoomiyaha gobolka Shabeellada Dhexe Mudane Axmed Meer Makraan, saraakiil ka tirsan ciidamada xoogga dalka, gudoomiyaha degmada Raagaceele iyo xildhibaan Cabdiraxmaan Gacal oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Hirshabelle. Dadka deegaanka oo ku faraxsanaa imaanshiyaha mas'uuliyiintan iyo sida looga dulqaaday argagixisada ayaa waxay sheegeen inay ka go'an tahay la dagaalanka khawaarijta, waxayna sidoo kale ay ka sheekeeyeen dhibaatooyinka argagixisada ay u geysteen shacabka Soomaaliyeed. meeshaan ma joogi jirin, haddaan lagu xilligan joogo ma jirin, walaa kala haadi jira. alxamdulillah ma hadda ilaaha iska lahlaan ku baashaalayno. alxamdulillah aniga aad iyo aad dhibaato badan aan ka soo maray nimankan khawaarijida oo shabaab la leeyahay. muddo 8 bilood aqalkayga ma seexan. waxaan ugu cararayay si ka soo aruurayay aan diiday. rag baa la shaqay jiray. dadka meesha taagan caaw dadka meesha fadhiyo dad baa laga yaabaa inay ma taqaan leeyihiin hebelaasha la meesha istaagay hebelaasha la hadlay. intii raggaas ku shaqaysan jiray oo noocaas ku shaqaysan jiray iyo ninkii koomba baa loo dhigay u qaaday intii la qabtay waa ogtiin dawladda soo qabatay. inta dhiman ee maxamar u dhuuntay ama noohooyinka dabada hoose kaga jirana waa lagu daba joogayaa laga cabsanin. naftayna aan u horno waa inaan wadooyinka ay ka soo galaan waa naqaan ay kama yaqaanin dad meelahaas laga keenay oo wadanka ma aqaanin inay meesha noogu taliyaan ayna yiraahdeen noogu amarku taliyaan. hadda maalintii ugu dambaysa 2 nin waxay ka qaateen lacag aqal gelin. lacagta maanta aan goosho kun lacag badan ka qaateen waa 2 nin bas oo 2 nin qori loo motogo ma socoto waa ayaan daro. laakiin laga bilaabo maanta waxaan aan iskula aan ku faataxaysayna idinkana garab noogu naqaysiin inaan dhiigayna aan u horno wadankayna. gudoomiyaha degmada Raagaceele Cumar Cali, xildhibaan Cabdiraxmaan Gacal iyo Korneel Masdile ayaa dhankooda waxa ay sheegeen in ay garab istaagsan yihiin ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo dadka deegaanka ee dagaalka kula jira khawaarijta. waxaan halkan u nimid howlo shaqo oo la xiriira dib u xoreynta deegaanada gobolka Shabeellada Dhexe. waxaan leeyahay waa la imaajiray xogaa wax inta la qabto ayaa la iska naqa jiray. markaan maaha markii la laabanayay waa la idin la jiraa waa la idin la joogaa meel walba geed iyo guri walbaan idin la joogaynaa haddii Ilaahay yiraahdo. waxaan ahay xildhibaankii idinku matalayay statekan Hirshabelle deegaankan iyo kuwa la mid ah. wax badan ka dhawaajimayo waxaan rabaa bini'aadanka Allah karaameeyay dawladnimada lagu sheegayo waxa waaye dad isu tagay oo iskaashada waay. wax cabashaha iyo cawaad dambe oo aan cabaatamayna ma laha. dadaa Ilaahay naga dhigay tuuladan Bagajeex waxaa la mataanahay gaaleef habeenkii la gubaayay qalbigayga sidoo ahay Ilaahay waa ogaa annaga ogaa. shabaab xoogana wuxuu ahay soonkan wadadaana eed ways ognahay. waxa kale deegaanada kale niman ciidamada ka yimid oo ka soo dirnay ahay. ciidana waxaad ka geysateen waa ognahay ma moogin. maantana waa idin jeednaa wajiga qurxoon iyo kalsoonida aad maaragtay ku soo fadhiisateen meeshan la isla meeli karo. waxaa kaloo dheer taas meeshan waxaa yimid ciidamo gorgoraa soo mara meeshan inaad si qalbi furan aad ugu soo baxdeen aad u timideen ay ii sheegeen aniga nimanka militariga oo meeshan maro oo wacdaan la socday. ammaantiina waxay jirtaa kumaanta sir jito wasaaradda gaashaandhigga ay jirtaa. gudoomiyaha gobolka Shabeellada Dhexe Axmed Meer Makraan ayaa dhankiisa tilmaamay in naf iyo maalba ay ku bixin doonaan dabargoynta khawaarijta. dawladda waxay noo cadeysay oo madaxweynaha ugu sareeyo qaranka inuu wax kasta nala garab taagan yahay ee nimanka canaasiirta la iska dhacsho ayuu noo cadeeyay. haddii intaasi xatay ka timaado annaga meeshaan aad joogtiin inaad la joogna hadda kadib go'aansayna meelna idinkaga naqamayna haddii xatay taas ay dawladda xaggeeda oo cudurdaar yimaad xatay inaan meel idinkaga naqano go'aankayna maahan.
adinku go'aan ma idinka tahay inaan naftayna iyo maalkeena ku bixin oo nimankan aysan deegaankeena ku soo noqon go'aan ma idinka tahay ilaahu marqaati ka haw waxaan rabnaa horta naftaan way bixaysaa maalinayna bixaysaa ama sariirtaada ku dhimo ama geed ha ku muday ku dhimo ama adigoo maartay ku jirtid arrimo kale ku dhimo waa la dhimaa sababa loo dhintaa sababtuna ilaahay baa keenay ma ahan qof keeni karto kala ma jirto inta soo dagaal dad soo galay waxa arkay nool qofa sariirtiisa ku dhintay intaba ilaahay yaa maartay ajash iskale ajash ilaahay xaqiisa ka timaad maan qof hayso kala ma jirto waxaan rabnaa marka waa dhimaynahay aan gobonnimo ku dhimanno dhowrkii toddobaad ayna ka soo gudubnahayaa ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo dadka deegaanka ay is abaabulay waxay gacanta dawladda ay soo geliyeen ilaa dhowr deegaan oo horay ay ugu sugnaayeen khawaarijta. Cabdiraxmaan Xuseen Cumar Wadani, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed.